runtii sharaf noo ah maanta qasriga madaxtooyada gurmadka abaaraha oo hogaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saydici inaanu ku wareejino lacagtii qaaraanka ee golaha wakiiladu ugu tala galeen inay ku daraan gurmadka abaaraha goluhuna uu dooda adag ka yeeshay iyadoo horena aanu qoraaladii iyo baaqyadii guud golaha ka soo baxay go'aamadiiba u soo gudbinay madaxweynaha iyo guddiga madaxweyne ku-xigeenku madaxda uu yahay inta baan u soo gudbinay waa runtii qadar aad u kooban oo sidii hore baan u sheegnay $50,000 oo u dhiganta 425 milyan oo shilinka Soomaaliland u dhiganta laakiin waxaanu isleenahay wuxuun bay ku beeranaysaa gurmadka aynu ku jiray waxay iyana kaloo muujinaysaa maadaama golaha wakiiladu uu yahay golihii shacabka in dareenkooda uun ay ku muujiyaan marka waa un dareen muujine waanu dareemaynaa inaanay wax badan ka taraynin oo baahida taallaa ay aad u weyn tahay waxaan jeclahay markaas iyadoo ay xubnihi shirgudoonkula joogaan guddigii gurmadka abaarahana madaxweyne ku-xigeenkii iyo wasiirkii diinta iyo awqaafta wasiirkii arrimaha gudaha runtii wasiirka ay joogaan halka nala joogaan inaanu wareejino oo lacagtii ku wareejino insha allah soo dhawow lana wareeg insha allah haddii ilahay $50,000 oo u dhiganta 425 milyan waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa golaha wakiilada oo ay matalayaan 3 gudoomiye ila jooga oo runtii dareenka nala qaatay dhibaatada maanta abaartu ay saameynta ku yeelatay shacabka reer Soomaaliland runtii saameyn aad iyo aad u xoogana inay iska xilqaameen inay ku qaybtooda kaga qaataan gurmadka abaaraha ee loo gurmanayo hadday biyo dhaamis tahay iyo hadday maanta cunto tahayba qadarka intaa waan ka guddoonnay lacaga oo dhan $50,000 oo u dhiganta 450 milyan runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii inay xil gaar iska soo saareen iyadoo kulli xaaladdu sida uu sheegay gudoomiyuhu aynin maanta xaaladayna haysata iyo culayska jira intan iyagoo ay keeneen iyo in badanoo kale oo weli la soo gaargaadhay weli aynidana xaaladda kaga dhici karayn aynu nus iyo rubuc midna kaga dhacayn haddana laakiin kolba intaan hayno iyaan ku maaraynaa ama aan gaadhsiinaynaa dadka ay dhibaatadu maartay ama saameynta abaaruhu gaadheen oo gaar ahaan weli maanta 3 gobol ee bariga ugu xooggan annaguna waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in aan anagu xilkaan ilaahay nagu astiro wixii ummadda loogu dhiibana in ilaa halka u dambaysay gaadhayso aan mas'uuliyaddeeda annagu aan qaadnay kuna daba soconno cid walba aan maartay u dhiibno haddii biyo loogu dhaaminayo haddii raashin lagu gaadhsiinayo wixii kale la gaadhsiinayaba waxaa mas'uuliyad guud aan qaadnay weeyaan aad iyo aad baad mahadsantihiin